burburkaan wixii sababay maalin kuma imaan meel bay wax ka khaldameen waxaan kaa codsanahay inaan noo iftiimiso arrin kastoo laga hadlayo saddexda waqti oo ah shalay iyo maanta iyo berrito way isku xiran yihiin waayo tagtadii haddaan la ogeyn waqtiga xaadirka ah lama fahmayo waqtiga xaadirka haddaan la fahmin timaadadii lama fahmi karo gumaysi ayaa dalka qabsaday ilaa muddo 100 sano ah na haystay xorriyadii baa la qaatay haddii warkii lasoo koobo xorriyadii markii la qaatay xorriyadii macnaheedu waxa weeye waxay keentay dowladnimo ummaddu waxay u halgantay dowladnimo calan la helay dowladnimo la helay dowladnimada macnaheedu waxa weeye waa beer weeye miraheedii dadka in la gaarsiiyo waa in cadaalad bulshada la sameeyo waa in la helo mechanism maamul u adeegi karo ummadaas oo cadaalad bulshada gaarsiin karo dhaqan dowladnimo oo beeran oo samaysan ma jiro ka dambe muddo 9 sanadood ka dambe waxaa dhashay kacanka wuxuu ahaa xukun askari wuxuu leeyahay duruufo adag wuxuu leeyahay cadaadin badan in dadka xorriyada laga qaado xuquuqdii inaan loo sinaanin cadaalad bulshada halkeeda ay ka sii socotay markii cadaadintii wixii ay bateen oo dadkan ayagaa la rabaa mustaqbalkooda iyo dadnimadooda iyo qayimkooda inay haystaan haddii intiiba la diiday xukunkii hadduu adkaaday waxaa dhacay gadoodkaasaa dhacay kacdoonkii markaas dhacay oo 90kii waxaa burburay dowladnimadii iyo haykalkii dowladnimada waa burburay institutionka dalka jiran wuu baaba'ay nabadgelyada farayay ka baxday shuruucdii wixii dabaqabad lahaa way dumeen dadkii ehelka u noqon lahaa oo qarankan badbaadin lahaa oo intiisii badnayd aan la gaarsiinin mirihii dowladnimada iyo adeegkii aan la gaarsiinin oo intaas cadaalad darro ku noolaa ayaa magaalooyin ku soo qolqolay waayo nidaam waxay ogyihiin nidaam dulmi ku hayay oo cadaalad darro ku hayay ayaa meeshii ka tegay wax la arkay asaa lahaa waa la badbaadiyay waxaas taas soo raacday maadaama aysan jirin meel loo noqdo oo ururo bulsho aysan dalka ka jirin dowladnimadii iyo wixii ay burbureen dadka qabiil u aaday qabiilkii dhibaatada oo keenay waxa weeye dadkii burburkaas iyo khasaaraha sababta u ahaa oo hoggaanka u ahaa waxay ahayd nidaamka hadduu burburo ayagana inay burburaan darashada inay ka baxaan kama bixin nin la arka qoyskiisa oo galay waxay noqdeen hoggaamiyaal dhaqan ayay isku bedeleen nimankii akhyaarta ahayoo meesha maaragta nidaamka haysta horta taas waa nagu dhacday midda kale kacdoonkii iyo dagaalkii sokeeye waxay kusoo beegmeen waktiyo duruufo adag oo adduunka ka jiray duruufahaas oo ahaa waa xasuusataan dowladda Mareykanka madaxweynihii hore Bush wuxuu yiri adduunka waxaan ka dhisaynaa nidaam cusub. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. oo wuxuu yahay aan la sheegin oo markaas la yiri waa la dhisay
nidaamkaas cusub wuxuu keenayaa wixii nidaam uu ka horreeyo dhan in la burburiyo annaga horta nidaamkaas waa ku soo beeganay waxaa kaloo dhacay dhacdooyin badan dagaalkii ciraaqa dhacay yugoslaviya burburtay 100 shay ayaa qarxay waxaa moodaa waana hareeyeen oo adduun weynaha way ka hareeyeen in loo soo jeesto arrintan taasuna meel kale ka dhacday nidaamyada adduunka soo maray gumaysiyaa soo maray waxaa soo maray maxaa ahaa dhulgoosiyaa soo maray addoonsiyaa soo maray gumaysigiyaa ugu dambeeyey gumaysigii dagaalkii labaad marka uu dhammaanayay baa la yidhi hala baabi'iyo decolonization wax la yidhaha hala sameeyo fikradda ka dambeysana waxay ahayd dadka reer yurub ayaa adduunka gumaystay ruushka yurub maraykanka kuma aysan jirin marka nin la arko wuxuu xariista meel ou alaabtiisa khayrin ka soo qaato marka warshadaystana ku gato suuqyihii marka waa xiran yihiin dadka wax gumaysta u xiran yihiin waxay noqotay marka si waxaas loo furfuro decolonization in la sameeyo la yidhahdo dadku waa xor ay hor socoto waxaa la yidhaahdo free market suuqa xorta nin la arko meesha horaba wax ka gato taas ayaan annagu kusoo beegan nidaamkaas marka waxaa bedelay nidaamkii gumaysiga ahaa waxaa bedelay free market wax loogu magac daro iyo dadyowga la gumaysto oo xorriyo gaaro marka nidaam kasta marka oo la dhisayo nidaamka maraykanka uu sheegay nidaam la arka nidaamkii ka horreeyey waxyaabihii uu ku taagnaa waa inay burburaan haddii kale kan kale ma istaagi karo burburintii in lagu jiraan isleeya oo nidaamkii hore oo free marketka ahaa oo maxuu ahaa xorriyada ahaa oo UN systemka uu ku dhisnaa charterka uu ku dhisan yahay dadka UN-ka waxaa la dhisay waqti nabadda loo baahan yahay dagaal xun lasoo maray lagu hoobtay ayaa lasoo maray goor loo baahan yahay in xuquuqul insaanka la xoojiyo in dowladaha isku xurman noqdaan inaan dadka shu'uuntooda gudaha la faragelin inaan lagu duulin waxyaabo badan mabaadi' badan oo sal u ah ayay u baahan tahay nidaamkaas in la burburiyo haddii la rabo nidaamka wixii waa in la baabi'iyo waata hadda marka mabaadi'dii qaanuunka caalamiga ahaa oo midba mid kor saaraa la yidhi midaa furo u ah oo meeshii xuquuqul insaan lagu sheego inuu lagu tuntay waa bannaan tahay in la galo in la qabsado waa la baneeyey marka waxaa moodaa nidaamkii hore mabaadi'diisii in la tirtirahayo kii kalena weli uusan muuqan habkii lagu dhisay kaasna waa la soo guray dagaalkii sokeeye waxba ma reebin waayo muxuu ahaa waxaa hataa laga tegay anshixii oo ummadda soomaaliyeed dagaalada waxay leeyihiin anshaxay leeyihiin iyo nidaam ay leeyihiin dagaalada soomaalida weligeed waa ka dhici jireen laakiin dagaalo laga heshiiyo oo sababo gaara leh ayay ahaayeen ama ceel lagu dagaalo ama maarata daaq lagu dagaalo ama maarata xoolo la kala dhacay sibaa loo xallin jiray eetikana waa lahaayeen oo dadku isbixin jiray waayeelka lama dili jirin carruurta lama dili jirin muxuu ahaa haweenka lama dili jirin waxyaabo badan oo birimagaydo ah ayaa jiray oo la dhowraa oo anshaxa uu dhowrahay wixii oo dhan anshaxaas waa laga soo tegay magaala lagu dagaalamay waa la saqiiro gowca la galay waa saasoo marka anshaxii naftirkiisii dhaqankii soomaalida qaar ay ku badbaaday si kasta baa kusoo socda meesha wadankii waxaa ka dhistay waxaa dhismay dagaal oogayaal wadankii wuxuu noqday waa burburay waa la kala aaday waa dadki waa kala irdhoobay ummad kasta beeskeeda shuruucda ah waa inay dhaqankooda ku salaysan sharci aan dhaqankaada ku salaysnayn haddii lagu keeno ma dhaqan galahayo waayo dadkian u hoggaansamay waxaa dhashay maxaakiimta ururada maxkamadaha
وبلو مي هو لو كشقينا هي سمفل iyo tacliin waa ka shaqeynay waati marka nimankii warlord taayay ayagi qandaraas in qolal la siiyo liir bal qolada soo qabta waxa kamid marka hubka ugu wanaagsan ee haysteen waxa weeye niyad sameeyay hayseen waxay ahaayeen dad umadooda inuu shaqeeyo rabaan waxay haysteen sharci diyaara oo samaawi ah oo shariica leh dadkina uu hoggaansan yahay dhaqankiisii kamid ah kiibeego nabadgelyada xasishay waxay ku reebeen xusuus wanaagsan ay mujtamaci Soomaaliyeed ku reebeen xasilooni muddo 6 bilood socotay bay ku yeesheen duulaanka dalka dariska oo Ethiopia oo ku soo duuray Soomaaliya iskama imaanin waxyaabo badan oo annaga sabab u nahay jira qaar annaga ka naga mid ah keen waxa waxaynu ku dhacday nin iska dhicin iyo in la arko nin kale inuu xukun la kala jiito abay ku dhacday waqtigaasi ku soo beegmeen ayagu tusaalahaas ayay bixiyeen haddaba markii loo fiiriyo waqtiyo badan oo adduun weynaha mar waa soo waatay UNICEF timid waa in waati ciidan la keenay waa wax kasto waxba socday UNICEF qaybteedii hore dad badan baa lagu badbaadiyay dad baa maxaa ahaa cunno iyo waxba laakiin hal rabitaan siyaasadeed oo adduunka intuu ka soo go'day oo dalkan in la xasiliyo wuu maqnaaday rabitaan siyaasadeed wuu maqnaaday maxaan ka wadaa waxaan ka wadaa annaga markasta oo ummad Soomaaliyeed isku timaado la yiraahdo xal la gaaro waxaana loo soo saaray markii ugu dambeysay 4.5 wax la yiraahdo haddaba annaga isku su'aasha la isweydiinayo waxa waaye war 4.5 igu kaadiyay annaga xasaradaha adduunka ka dhacay iyo dagaalada sokeeyo adduunka ka dhacay annaga nooma koobnay meel badan ay ka dhaceen Liberia ka dhaceen muxuu ahaa Sierra Leone ka dhaceen Burundi ka dhaceen waxay ka dhaceen muxuu ahaa Congo ka dhaceen meel badan ay ka dhaceen meelahaasna waa la xaliyay waxaana lagu xaliyay in talada loo celiyo dadweynaha oo ay dhistaan maamul ku yimaada rabitaankooda xambaarsan rabitaankooda ku shaqeeya rabitaankooda waayo crisis-ka annaga nagu dhacay hoggaan sharciya baa la waayay ayuu u badan yahay muxuu ahaa qaska marka hoggaan sharciya in la soo celiyo waxay ku xiran tahay in dadweynihii loo celiyo maxaa diiday marka oo Liberia loogu sameeyay oo qolada loogu sameeyay oo Congo loogu sameeyay oo Rwanda iyo Burundi loogu sameeyay Soomaaliya maxaa jira maxaa dadweynaha loogu celin waayay rabitaankoodii inay awoodoodii inay doortaan dadkii hoggaanka u noqon lahaa oo sharciyada ay siin lahaayeen halkaas waxaa ka muuqdaa in uu ka jiro hagar badan iyo hagardaamo intaba inay ka jirto ayaa muuqata maxaakimta ayay naftukooda waxay la soo kulmeen duulaankan ay la soo kulmeen duulaankan wuxuu ku yimid waxaa la ogolaaday dawlad darisa inay dawlad kale sababtay rabtaa ku timaad raba Soomaaliya ku timaad inay weerarto ay qabato adduunkana uga aamusa Afrikana sharciyeysa arrintaas Soomaaliya ma ku ekaanayso berri qolaysi wax ka noqonayaan in lagu duulay noqonaysa waxay ahayd meesheeda in lagu celiyo nidaam aad u khaldan waay waxay sii fogeynaysaa labada dal oo qadiyada ay ka dhaxeeyeen oo colaadi ka dhaxeysay colaadii sii fogeynaysa ma wax kale ay meesha Itoobiya way baxaysaa marun bay baxaysaa laakiin dagaalka Itoobiya ay ku baxayso يعني قالوا هدي اللي قبصده وحق إني مقاومة سميسو إني وحي ستكون تجعلنته وحق تاس لكن أنا كلام حلو بهاي إن الوجود داره تجعل كدبلوماسي قاعد الوجود
ayaa loo baahday oo hay-adahan ka aamusay ama sharciyeeyey duulaanka soomaaliya lagu sameeyey ayaga naftirkooda in lala xaajoodo. waxaa soo haray iyadoo marka ifafaalahaas oo noqdo maxkamadihii la kufiyey wixii ay wadeen ay dhicisoobeen welina ay ku jiraan ay muxuu ahaa qolada dhaqdhaqaaqaysa ay tahay. arrinta soomaaliya waxay u taallaa dadka soomaalida. marka la leeyahay dadka soomaalida u taallaa micnaheedu waxa waaye soomaali oo midaysan. hadda khilaaf baa soo kala dhex galay qolada maxaakiimta waatay laba garabood noqdeen. khilaafkaas asaga inay garabo ururo badan jiraan dalka wax dhibaato ah ay keenaysa male, laakiin fikri dadka inay ka mid taysnaadaan ayaa muhima. way jiri karaan maxaakiimta 4 ay noqon karaan 7 ay noqon karaan, hadda waa labo laakiin labadooda ayagoo jiro ayay waxay ka ujeedo ka wada dhaxayso ayay samaysan karaan. aakhiritaanka dambane halkii runta ahaa loo noqdo oo talada loo celiyo dadweynaha oo nin la arka kalsoonida oo helo inta ay la tahay oo la suuq yimaado. halka ugu dhow kaas weey ilaa loo celinayo talada dadweynaha loo celinayo oo ninka faqiirka oo waxba haysan iyo kan ugu qanisan iyo kan xoog leh iyo kan daciifka ah ay isku cod noqdaan oo talada dadweynahaas loo celiyo sharciyada halkaas laga raadiyo. arrintan khilaafka ma dhamaanayo, laakiin dadku inuu kala duwanaadaan. wadamada adduunyada oo dhan waxaa arkaysaa wadan 10 xisbi ay xukunto oo 4na ay maamulkii wado 6na ay mucaarad tahay ayaa arkaysaa ama sidoo ayagoo kala duwan. laakiin waxaa la isku haystaa waxay qabaan meel wax ay ka midaysan yihiin, wax inay ilaaliyaan loo baahan yahay. waxay og yihiin in uu rabitaanka dadweynaha inay ku xiran tahay ayaga koritaankooda inay wax qabsadaan xukunka hadba awoodda inta ayaga dadweynaha uu siiyo unbay awoodda ku leeyihiin. ilaa marka annagu aan ixtiraamno oo dadweynahayni aanu noqon inta aan nin la arko waranka kilkilahay murqa tooxayo oo uu leeyahay aniga hala ii yeelo ma soconayso. adduunkana wuxuu ka baaqsaday in soomaalida gacan lagu siiyo xukunkan dadweynaha in loo celiyo si looga baxo walaahowa ku imaanayo taliska sharci darrada ah oo ku imaanayo. halka aniga taas ugu la dhoway. waxaa kaloo meesha ku jira maadaama arrintan saldhiggeeda yahay xorriyada oo dadka laga qaado iyo cadaalad bulsho oo aan la samayn. cadaalad bulsho macnaheedu waxa waaye khayraadka dalka inuu dadku u sameeyo, fursadaha jira ama mid shaqo ha ahaado ama mid ganacsi ha ahaado, fursadaha jira in loo sameeyo, tacliinta in loo sameeyo, caafimaadka in loo sameeyo, adeega dadweynaha in loo sameeyo oo dadka xuquuq ay yeeshaan, ixtiraam helaan. tacliinta in loo dejiyo qayim iyo hadaf in loo dejiyo si loo abuuro bulsho isku tiirsan, isu xanuunsato, isku dareena loo abuuro hadafka tacliinta in la hagaajiyo. cadaalad bulsho ilaa la sameeyo oo la sugo cadaaladda. nidaam kasta oo lasoo waa burburaya waayo kii hore wuxuu ku burburay cadaalad darro. talis si sharciga u yimaado oo ku yimaado rabitaanka dadweynaha ku yimaado ilaa laga helana xalkii ma la helayo. anuu saasaan faldabiyeedka ka dhacay dalka ma isleedahay waa wax laga wada hadli doono oo waxaa la furi doonaa dariishad wada hadal baa la furi doonaa mise waxaa sidaas lagu duugaya? dagaalka Soomaaliya haddii xal loo helo waxaa xal kale kaa raba wixii bacay
mas-uuliyaddeedii in la sugo waayo haddii maanta xuquuqul aadamigii lagu tuntay burburkii la sameeyey boobkii la sameeyey dhicii la sameeyey ayagoo furan oo aan xal cadaaladeed laga gaarin haddii la yidhaha arrinta waa dhamaatay arrin dhamaatay ma soconayso waa heshiinaynaa xaladhalayaan noqonaynaa mujrimkiina waa nagu dhex jiraa wixii wax bi'iyo mas-uuliyaddii burburkan ciddii lahayd baaritaan gaar ahaan gumaadka ku dhacay dadka soomaaliyeed iyo xasuuqa dadka mas-uulka ka ahaa waa in meel lagu xiro mas-uuliyaddeeda waa in la saaro qolada iskale haddii aan la sarin waxay kugu noqonaysaa weli khatar adigu kugu furan weey mujtamacan weligiis ma caga dhiganayo Hooray,